marka jacayl laga hadlayo inta badan waxaa muhiim u ah nabadda. magaalada muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaaladii sokeeye ee muddada dheer ka holcayay waxaa dhowaan laga furay dukaan lagu iibiyo hadiyadaha oo keliya. waxaa muddaba uu dukaankaasi soo jiidanayay waa muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyarada doonaya in ay kasbadaan qalbiyada lamaanayaashooda iyo weliba dadka kale ee ku weyn. cali nuur saraad ayaa warbixintan nooga soo diray. halkan waxaa ka dukaamaysta dadka doonaya in ay hadiyada u iibiyaan dadka ay jecel yihiin iyo asxaabtooda dhiganaya munaasabadaha kala duwan. dukaankan oo macaamiil badan ay u soo adeeg doontaan ayaa si gaar ah waxa uu u soo jiitay dhallinyarada, gaar ahaan lamaanayaasha cusub. qofka aad rabto maanta inaad dareenka la wadaagto wuxuu kugu cabiri karaa inaad la wadaagto dareenka qofka inaad hadiyad u geyso, haddii ay noqoto mid jacayl oo qof jacayl ku saleysan, hadiyad jacayl ku saleysan, hadday noqoto hadiyad ku saleysan inaad qofka u hambaliyeyso ama jaamacad oo dhammaystay ama jaamacad qalinka oo qalin bedelasho uu ku jiro. wallaahi kuwa leeyahay qofka waxaa dareemi kara muhiimadda ah qofka hadiyadda maxaa la yidhahda loo geeyey. waxaan u geeyey koob sawirkiisa ugu dhagan yahay, anigana dhinaca uga dhaganahay. aan ugu talagala markuu xafiis joogo ama markuu guri joogo, labadaba inuu wax ku caabo. isku hibaynta hadiyadaha ayaa ah dhaqan ku cusub jiilkan oo ku hana qaaday muddadii burburka Soomaaliya. waxa ayna u muuqataa in ay si dhaqsi ah ula qabsanayaan. macaamiisha ugu badan ee dukaankan waa dhalinyaro, wiilal iyo gabdho isugu jira. waxa ugu badan ee halkan lagu iibiyana waa ubaxa, astaan nabadeed iyo mid kalgacal. sidaa darteed ayay dadku ugu yeeraan dukaanka dadka isjecel. dadka hadiyadaha halkan ka iibsada waxa ay ka helaan talooyin ku aadan nuuca hadiyadaha ay qaadanayaan si ay u waafajiyaan hadba waxa ay munaasabadu tahay. qof kasta dhalinyarada Soomaaliya Muqdisho joogo waxa kaliya uu yaqaan waxa markay qora dhaco shanqarta xabada sadexdu uu yaqaana aka dhaco ku leeyahay biskoolada dhaxdu ku leeyahay, laakiin se ma yaqaano ubax qof gaclisadiisa ah ama hadiyad qof macalinkiisa ah nooca u geelaha ma garanayo. waxaan u aragnaa marka fursad inaan dadkii dhalinyarada ahay ee nabadii iyo xilligii baraaraha Soomaaliya laga sheekeynay aan soo joogin inaan isla fiirno. muqdisho waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay, waxaana ku soo kordhaya ganacsiyo cusub oo aan horay looga baran, kuwaasi oo ah adeegyo ay bulshadu u baahan tahay. cali nuur salaad, BBC, Muqdisho.